goor dhaweyd dowladda Iran ayaa faraha ka qaaday oo sii daysay gantaaladii ugu badnaa kuwaas oo hadda si weyn ugu hoobanaya Israel. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya meelaha gantaaladu ay ku dhacayaan ilaa iyo laba guri oo dad deganayeen ayaa wararku sheegayaan gantaaluhu inay ku hoobteen. magaalada Haifa ee dekedda oo kamid ah isha dhaqaalaha ee Israel ayaa caawa laga arkayaa holac iyo uura badan oo halkaasi ka baxaya iyadoo dhawaqa gawaarida gurmadka degdegana meel walba uu isqabsaday. Israel wargeyska Ahronoth lagu magacaabo goor dhaweyd war ayuu sii daayay waxa uu leeyahay Haifa 4 qof ayaa ku dhaawacantay kuwaasi oo loola cararay isbitaalka sida wararku ay tilmaamayaan. dhinaca kale meel ay kamid tahay Tel Aviv ayaa gantaaluhu ay ku dhacayaan waxana jabhadaha gudaha ee ciidamada Israel ay la tacaalayaan xaaladdan inay ka hortagaan. nidaamka difaaca ee hawada Arrow 2 iyo Arrow 3 ayaa lagu soo waramayaa sidoo kale inay ku gooldareysteen gantaalaha Iran inay qabsadaan. maanta ninka ugu sareeya Iran ee Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku dhawaaqay in la galay dagaal ballaaran oo dhaba wixii horena ay ahaayeen ciyaar kadib markii Israel meel walba ay ka weerartay magaalooyin kala duwan oo ku yaalay Iran. meelaha maanta Israel ay weerartay waxa kamid ah galbeedka Dhahran oo si weyn loo duqeeyay. magaalada Asfahan ayaa kamid ahayd garoonka diyaaradaha ee Mashhad ayaa sidoo kale la duqeeyay. ka Dhahran ayaa la duqeeyay kaydadka shidaalka ay Israel beegsatay inkasta oo jawaab hordhaca ay galabta bixiyeen nidaamka ama dawladda Islaamiga ee Iran. haddana Israel caawa mid kamid ah dhibaatooyinkii ugu bacnaa ayay ku dhex jirtaa waxna la leeyahay ma sahlana xaaladda. marka la fiiriyo Tel Aviv waxay sidoo kale ka mid noqonaysaa meelaha gantaaluhu ay ku dhaceen. meel walba gurmadka ayaa socda gaadiidka degdega ah dadkana waxa la leeyahay ku jira guryaheena. magaalooyin kala duwan oo Israel waxa ka baxaya shanqarta digniinta degdega ah oo muujinaysa xaaladdu inaanay fiicnayn. wariyaasha halkaas ka soo hadlaya waxay leeyihiin ma sahlana arintan marka la fiiriyo gantaalaha awoodda ay leeyihiin iyo sida dhulka u gariiraya marka uu dhaco iyo sida mushkiladda ay aad ugu sii kordhayso. arintaasi waan eegi doonaa oo barnaamijyo kale ayaan ku fiirin doonaa waxa ka soo kordha. dhinaca Iran ayaan fiirinayaa taliska ciidamada ilaalada kacaanka ah ee dalka Iran ayaa soo saaray war u muuqanaya digniin ku socday shacabka Israel. waxa lagu yiri meel kasta oo qof madaxa iyo sargaal iyo waliba nin ama gabar aqoonyahana oo arrimaha nuclearka ku lug leh ama arrimaha sirdoonka ama arrimaha militariga waa bartilmaameed ayaa la yiri shacabku ha ka fogaadaan. hadalkaasi waxa goor dhow daayay shacabka dawladda Iran ciidamadeeda ayaa sii daayay oo muujinaysa dheelitiranka dagaalka hadda inuu sinmay laakiin gantaaluhu ay ku hoobanayaan dhinaca Israel. wargeyska Ahronoth waxa uu leeyahay Israel waxay diyaarinaysaa gantaalo jawaab celin ah laakiin waxba taas ka horeeya oo yaab leh marka la fiiriyo sida ay hadda xaaladdu tahay. Iran waxay leedahay gantaalo kale oo tiro badan ayaan soo deynaa caawana habeen la seexan doona maaha. xaaladdu gobolka aad ay u adag tahay. dawladaha qaar waxay doonayaan xalal diblomaasi ah oo degdeg in la gaaro waxa soo weeraradan ay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan Netanyahu uu warbaahinta la hadlay. ra'iisul wasaaraha Israel oo Fox News la hadlay waxa uu yiri inaan Iran la dagaalano oo aan weerarno xarumaheeda nuclearka waa wax guud ahaanba u wanaagsan caalamka. waxa uu yiri haddii xitaa loo dhaafo gantaalaha Iran inay samaysatay bambooyinka nuclearka ma aha mid xilkasnimo ay ka muuqanayso oo waxa ay doonto ayay samaynaysaa. tusaale kale waxa uu yiri xuutiyiinta ayay faraha u gelinaysaa haddii xuutiga ay gacanta u galaana waa niman aan miyir lahayn meeshii ay doonaan ayay isaga dhifanayaan ayuu yiri. marka sidaa daraadeed dagaalka waa dagaal jiritaan ah oo aan rabnay inaan ku ilaalino badbaadadeena sidaas ayuu u sheegay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka laga leeyahay. madaxweyne Trump isagu waxa uu ku doodayaa xaaladdan inaan wax luga ku lahayn. Iran maanta wareys saacisa waxay ku tilmaantay diyaarado drones oo ay soo rideen ay ka muuqanayeen astaamo muujinayeen Mareykanku isticmaalayeen oo ay duqeynta qayb ka ahaayeen. wali xaaladda gobolka waa adag tahay. Haifana caawa waxay noqotay meelaha bartilmaameedka ah xarumo istiraatiiji ah ayaa la weeraray. wali kooxda gurmadka degdega ah maana sheegin khasaaraha rasmiga ah ee gantaalaha haatan socda weeraradeeda meel kasta ay ka dhacayaan iyo duqeymaha. akhyaaray waan eegi doonaa wixii arintaasi ku soo kordhaa. waxaan ahay Cabdicasiis Barrow halkan indhaha ku hay si aad macluumaadka iyo wararka ugu horeeya dagaalka iyo duqeymaha soconaya aad u heshaan. aad baad u mahadsantihiin.